كل كابن للحماية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo noqdo cana wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan waxaan idin leeyahay waa mar kale iyo kilib cusub waa walaashin hodan oo idin leh kusoo dhawaada channelkeena hodan fashion. waxaan ka codsanayaa fadlan haddaad channelkeega ku cusubtay subscribe saar kambaleelkana furo si aad nooga mid noqoto walaalada noogu xiran barteeda youtube-ka. intaa kadib waan idinka mahad celinayaa daawashada aadna daawanaysaan iyo waqtiga aadna gelinaysaan. halkaa waxaan ku haysanaa asxaabteeda qaaliga maanta waa nafaqadii timaha. halkaa waxaan ku haysanaa 2 xabo avocado ah iyo saliid olive iyo saliida iyo halkaa waxaan ku haysanaa kale saliida lowska ayna halkaa ku haysanaa asxaabteeda qaaliga. aan markale idinku celiyo waa 2 xabo avocado iyo 2 xabo ukuna iyo waxaan ku haysanaa kale 2 saliidood avocado 2 saliidood oo ah saliida qumbaha iyo saliida iyaduna lowska iyo xabad liin dhanaan ayaan meesha ka maqnayn ayaan ku soo daray biyo dhan mataabsiinayo. liin dhanaantii iyo saliida ayaa insha Allah isku burburin doona sida ay soo baxdana waad la arki doontaan. bilaabiyaan ku shiidi doona dilaawada la dhadaydo saas ah baan shiidaya waan soo shiidaa asxaabteeda qaaliga. tabtaas ay soo baxday way adag tahay maadaama badan maaniyo ay yihiin 3 hablood maasha Allah ilaahay daayay dhowre afartayada qofba maanta si fiican u marsan doona dilaawada la ka raali ahaado. kolley wad u marin kartaa yar walba laakiin bac oo kale kuma xiri kartid maadaama liin dhanaan ku jirto caafimaad ahaan inta badan bacdo uma fiicnaba marka jirku neefsadaa daldalooladu way neefsadaan inta badan bacda ku xidhina. kolley ani shakhsi ahaantayda kuma xidho. marka asxaabteeda qaaliga intaas ayaan uga gudbi doonaa hadii ilaawada la yiraahdo. waxa kale insha Allah maanta rabaa inaan la qaybsado qadadii maanta insha Allah maadaama oo maanta jimco tahay waqtina la iska hayo kolley waqti aan ku duubo cuntada ma hayo laakiin insha Allah sida aan insha Allah ka soo dhigo ayaan insha Allah miiska ayaan la qaybsan doonaa. miiska runtii sharxaade waa inuu sii galin maadaama qada tahay waa iska jimce maasha Allah ilaahay khayrkiisa hayna siiyo maanta. maanta waxaan insha Allah rajeynayaa insha Allah insha Allah billahi kareem khayrkiisa ilaahayna waa siiyo jimcaha soo galay inuu rabbi khayrkiisana siiyo xanuunadana ilaahay naga dulqaaday sida ciise wajal maadaama adduunyada wada xidhan yahay oo cudur xun inagu habsaday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caafimaad ugu bedelo intuu hayo inta kalena rabbi inaga qabto. halkaa waxaan ku haysanaa liin macaan 4 xabo liin macaan ayaan soo dhilay kadib waan ku guray sonkortana way agtaa labadaas waan ku shubaynaa. sonkorta marka aan ku shubno waxaan sameyn doonaa kale insha Allah 2 xabaan ku ay maraysa 2 maqcadood maqcad saddexaadna wataas maadaama sharaab ku badan yahay biyo badan kuma darayna hal koob oo koobkaas aad buu yar yahay insha Allah waan tusi doonaa aad buu yar yahay koobkaasi markaan dhulka dhigo wakaastas waa ka intaas u leeyahay ma weyna koobkaas yar oo biyo baan ku shubaynaa seekan rabnaa inay noqoto insha Allah billahi kareem kabadhig dhanba waxaan ugu talagalnay inay 4 koob aan ka badan insha Allah hadii ilaahay uu daleeraado waan soo shiidnay oo kaas oo shiidayna mashiinkan ku istaarnay insha Allah bismillah sida uu soo baxnaa la arki doontaan. inta badan liin macaantu way qaraadaataa hadda in badan ku daysa ama waa la miiraa marka miiritaan kama gaarayno maadaama waqtigu nagu yar yahay intaan ilaa maanta miirayno waqti ma hayno laakiin insha Allah markii isla markan imaka cuntadii way diyaarsantay waynu soo duldhigaynaa insha Allah hadii ilaahay wada laado. waa taas waa taaliintii salad balka ku jira bariis ku furfur iyo hilibkaas intaas weeyaan. alxamdulillah qolba inta daysada aan baa alxamdulillah raada wax ka maqan ma kala sii raadiyo ama ma waa la isku sii tawqiyo maadaama waxaan ay iska tahay qada iska fudud maasha Allah maanta iska qada fudud bariiska runtii furfurkaas aan ku jeclahay dad jecesha insha Allah waan kula qaybsan doonaa iyo hilibka xataa maana soo shiidin waan insha Allah waan soo kariyay dan waan soo dhigay sharaabka kaas muhiimada sharaabkan wadan lahaa sharaabkina waa kaan la qaybsada asxaabtada qaaliga insha Allah dadka hesho like ta anaga iloobin subscribe ka
gambaleelka furo intaba nagu dhiirigeli aad baa ugu mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga halkaa maraq baa ku jira maraqa maadaama ciyaalkaygu yaryar yihiin waan ugu daraa tusaalahaan oo kale waan ugu shubaa dan waan ku siiyaa maadaama bariiska qalaylka aanay cuni karin labada yaryar oo kale jawina way iska cuntaa maasha allah ilaah dunuda ay awlaada allah noo barakeyntanaysan allaha siiyo waxaan leeyahay asxaabteeda qaaliga ah kan intaan madaxiga ku kulmi doono walaashin hodanayd leh qado wanaagsan jimcaha aku fikirina cunto fiican saad u samayn leedeen laakiin cibaadada badiya aad baan idin salaamaya meel kastoo dunida fidka joogta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolkaaga nolol habooyo